ma taqaantaa cid ku sheegtay male markii ugu dambeysay dad baa waxay dhaheen halkaas lagu dilay laakiin annagu wax hadda daba kama hayno marka haddana walaalkay arrintii sidii leeg baa ku dhacday marka kulli waan arrin iska nasiib ma garanayo bal midaana lafteeda way jirtaa oo ma taqaantaa kulli السلام الله عليكم صاحب يال كل وناكسن برنامجكي بعد جوبكا بافنتا إلنتر صاحب يال وحن آد وقن حي وآد ومرق سنة هاي ولا الصومالية دو مريكا كجلسوا حريري ولا الكي مدشن سنة يال يقول إياه كينيا ملاد دلي ملاف دوبتي سيداي وحن نقدين لما قرنايو دعاء حنون كبدن نينكا مقن وعني شقي سنة يي وعرور بدن له ayaa aad noo murjisay isaga ayaa arrimo badan iyo tuhanada jir nooga sheekayn doono waxa ka siyaab badan isaga aabiis xitaa in la waayay wiilka maqnaabi la waayay oo loo sheegay in la dilay raqi ruuxna aan arkin cidi oo dhacdada aabaha murugtii xanuunka xambaarsan ayay tan ugu darsoontay miyaysan mudnayn qoyska noocaas oo kala inaan garab istaagno waa xaq انت ان سو دوين marka hore hadaad igu cusub tahay igu soo biir YouTube channel-ka subscribe de gambalelka furo muuqaalkaana share garay oo meelo badan gaarsii ma socono 200 kun oo subscribe waan gaaray laakiin ma socono inaan socono yahay marka sidaa daraadeed mar koobaad iyo mar labaad waxaan ka codsanayaa subscribe tiraad muuqaalka ay share garayso laagtaada oo muhiim saaxiibo qurux badan ayaan ku helayaa saaxiib horumarka channel-ka adiga ka mas'uula hadii intaas aad samaysana abaalkaaga waxaan gudmo sheegi karo soo dhawow magacaaga iyo magaalada aad joogto ee aad iga soo wacday walaal aniga magacayga Xasan Ibrahim Ahmed baa la dhahaa waxaan ka soo wacay wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota magaalada waxaan joogaa Minneapolis Xasan anigoo ka cudur daaranayo waqtigeenu aad u kala duwan hadda waynu kulannay حسن كسو دو برنامجka baadigoobka umada Soomaaliyeed ee Ilintir yaa ka maqan oo aad baadigoobeysaa walaal waxa iga maqan walaalkay Umar Ibrahim Ahmed oo muddo la leeyahay ilaa hadda 5 sano ka soo wareegtay markii ugu dambeysay oo ma taqaantay muuqaalkiisa la arkana oo dad ugu dambeysana waxay ahayd 2016 adoo markaan qiyaasay adoo bishii 12 meelahaas 10keeda hore dad ugu dambeysay walaalka magaciisa dhameystiran noo sheeg walaalkay waxa la Umar Ibrahim Ahmed walaalka waxna neesa ma laha amba koofaar ah ma waxna neesa oo aan hadda ku ogayn ma jirin كل دنيا dadka markay wadankii la kala qaxay oo wadankii burbur ka dhacay isku meel oo aan qaxino anigana jaa kala u qaxay asagan dhinac kale u qaxay oo hadda muddada 30 sano ee wadanku burbursan yahay ismaana arag aan telefoonka wada hadalla mooyeene anagoo yar baa isku kan dambeysay wax hadda markii anigu hadda naanayso ku ogahay ma jiro laakiin magaca la dhaho magacaas weeye ankuga sorry waayahay walaalka sidee lagu waayay bal nooga sheekay qaabka lagu waayay walaalka waxa lagu waayay horta reerkiisa wuxuu degan yahay qaxootiga ifo uu degan yahay walaalkii safar buu aaday xagga iyo Soomaaliya gaari bay adugu halka ka raacay safartii waa la soo laabtay magaalada Doobley inuu imaaday baa la ii sheegay ka bacdi markuu imaado gaariga halka uu imaaday halkaas dad ugu wardambeysay midig iyo bidix meel uu aaday ma inuu dhintay inuu nool yahay geeri cid hadda ka waraysa ma jiro anagu intaas ay ugu maqalaa mar la raadiyay oo la raadiyana inuu wadanka Kenya ku xiran yahay mar la sheegay ka bacdina wax war oo kale waa laga waayay
walaalka xaas iyo caruur ma laha walaalka xaas iyo caruur buu lahaa 6 ilmood 4 gabdhood iyo 2 wiil iyo xaas buu ka tagay waa gartay hooyada iyo aabaha ma nool yihiin ma aabaha anoo yar buu dhinto 4 jira hooyada way nooshahay waa yahay walaalka ma tilmaami kartaa qof nuuce ayuu ahaa walaalka hadda kulay hadda sawirkiisa waan soo diray anoo yarna way igu dambeysay walaalka nin cas oo aduu laftiisa oo raga hadda itaal fiican leh oo maartay casiin maartay dadka aad u xasaas ku jiray nin hadda kulay aad buu yaraada saddexaadkaygu ahaa intaan baan ku sheegi karaa nin hadda gaabana ma ahayn nin itaal dheerna ma ahayn nin meel dhaxaad u ahaa anagoo yaryar baa iskugu kaan dambeysay oo marka ana argiisa igu dambeysay ma dhaweyn ilaa 92gii buu waagaas oo anigana waan yaraasna uu yaraa igu dambeysay laakiin sida aan hooyi iyo dadkii iyo markii aan waraystay nin itaal aad u dheerna aan lahayn itaal gaabana aan lahayn oo ma taqaantahay nin casoo maartay kulay haduu ruux maartay wuxuu ahaa dadka casas buu ku jiray oo nin dhalinyaro aad u quruxsan buu ahaa marka saasa midabkiisu ahaa hadda meeqasan uu maqan yahay marka isku dartaan inta la yahay wuxuu maqan yahay ilaa 5 sano meelaha uu maqan yahay yaadu bilooyin ilaa aniga wiilkayga oo 5 jirka hadda asagoo 3 aan maran week inuu dhalan yahay hadalkiisa ugu dambeysay waa yahay bacdi ninku waa la waaya la igu dhahay waa yahay Allah fududeey Allah sahlo haddaan u soo laabano raadin hore oo aad samayseen oo baadigooba marka laga soo gudbo barnaamijkan ilintir baafinta ma jirtaa horay waxaad u samayseen ma ninka waa la raadiyay waa aad baa loo raadiyay kulay dad niman halka jooga adeerada iyo dadkii oo tolkii oo dhan baa halka jooga waa la raadiyay ninka inuu Kenya soo galay baa ugu dambeysay haddana liido waa la xiray marka xiritaankii waliba dad badan baa waxay dhaheen halkaas ku xiran yahay anaga aragnay sidan waa lacag badan baa yaa lagu cunay ka bacdi haddana waxa uu ka soo siyaabay aduu ilaa sanad ilaa 6 bilood baan daba soconay ka bacdi haddana wixii markii soo tiri waay faraha laga qaaday wax hadda ninka geeri iyo nolol meel ku sheegi kara walaalkay ma jiro oo maanta nin dhihi kara geeridiisan yaan xaqiijinay oo halkaas lagu dilay halkaas aan ku aragnayna nin dhahay ma jiro kulay markii noogu durdamay dad baa xidhan ninka xabsi baan ku aragnay wax ka bacdi sheego waa la waayay Cabdicasiisow wadankee marka aniga wadanka Kenya waayahay haye marka anaga kulay arintii dadka dhan iyo aniga iyo hooyadii dadka dhan arintii raayeen ugu noqotay hadda nin walaalka oo ma taqaantahay reer lahaa oo caruur iska korsan hayay oo mustaqbal adduunka lahaa oo geeri iyo nolol midna aad ku haynin qof kasta oo maanta Soomaaliya ama Islaana xanaankeeda fahmi kara ilaana qofka haduu uu dhaw dhintay waa wax laga samro ilaa hadda walaal waxa weeyo anaga sidii un bay noogu taagan tahay geeriyo nolol kuma hayno kulay murugo fara badan waan ma taqaantahay way naga haysaa xaqiisa marka inta un baan ka sheegi karnaa waayahay Soomaalidu markay qurbaha joogaan ama dalka ay ka tagaan waxay isu gartaan qaab beelbeel ama heeb qabiil walaalkaas Soomaaliyu ka ahaa walaalkii waxa weeye waa ogaadeen wuxuu ka yahay Ashantal Ibrahim hoos markaan u sii dhoodhaco Raasicid buu ka yahay meesha ugu dambeysana reed caalu ka yahay waa gartay ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanayso barnaamijkan maanta la socota ugu dambeyntii maxaad oran lahayd oo aad ka codsan lahayd ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay walaalkay la baadi goobaan qofkii geeridiisa hubto aragtana inay noo soo sheegaan oo noo saaxiibsanayna dhahan
ninka geeridiisa anaga hubna uu dhintay ninkii kale oo meel koogna inuu noo soo sheego mataqaanta arrintiisana ay mataqaan codkaana iyo hadalkaanagana iyo mataqaanta in la share gareeyo oo codka la share gareeyo oo sifadad badan u gaaro hadda Soomaalida iyo dadka Islaamka waxaan ka codsanayaa intii magacaan iyo muuqaanaga garanaysa iyo Soomaali Maxamed oo dhan in walaalkii la raadiyo lagana laga soo samarsiyo geeriyo nolol wixii meel ku sawirkaas aad ka hayso walaalka ayaan shaashada saari doonaa ugu dambeyntii marka haddii la aqoonsado walaalka noo sheeg lambar WhatsApp leh oo lagala soo xiriiro oo aan shaashada ku qorno noo sheegi kartaa lambarkayga waxa weeye waa hal haye waa +1 waaye +1 waaye waxa weeye 651 saddex lix saddex shan afar hal sagaal weeye waayahay lambarkaas ayaan shaashada kugu qoraynaa waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa in muuqaal farxad leh aan isugu imaano walaalkan Ilaahay u sahlo insha Allah waxaan kaloo abdaasoo ku yir sheegayaa arrinta kale murugayla waxa weeye aniga abahay 4 sano anoo jira asaas kale loo waayay geeri iyo nolol mataqaanta cid ku sheegtay male markii ugu dambeysay dad baa waxay dhaheen halkaas lagu dilay laakiin annagu wax hadda daba kama hayno marka haddana walaalkay arrintii sidii si leeg baa ku dhacday marka kulli waan arrin iska nasiiba ma garanhayo bal midaana lafteeda way jirtaa oo mataqaanta ay kulli hadda asagii 60 sano abay hadda ilaa ama 50 sano inta waa mataqaanta waa kala maqanahay haday ku dhowdahay hadaysa marka hadda waxa asagii iga daray kii asagii ba hadda yataqaanta aan mudnaanta u siiyay marka hadda reer anaga kulli sidaas ana abahay waa la waayay asagana saasan ugu waayay guud ahaan barnaamijkii baadigoobka ummadda Soomaalida ee intir muuqaalkan xanuunka badan inta ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo muuqaalo farxad leh ayaa jira laakiin hubinta ayaan aad markaas ugu dadaalaynaa inta dib u kulmayno nabad galyo